Dadka qaar ayaa iyaga oo og ama aanay ogeyn isticmaala dabeecado ama erayo dhaawac gaarsiiya dareenka ama qalbiga dadka ay la macaamilaan. Waxayna noqon karaan tilmaamo sharaf dhac ah ama dhaleecayn joogto ah ama qofka oo loogu yeero magac uusan raalli ka ahayn. Dabeecadda ama dhaqamada noocan ah ayaa dadka u geysta saameyn aan wanaagsanayn. Si kastaba ahaatee waxaa adag inaan wax ka qabano dadka leh dabeecadahaas, balse waxaan wax ka qaban karnaa qaabka aan uga falcelino haddii ay xaalad noocaas ahna qabsato. Haddii qof isku dayo inuu hoos kuu dhigo, raac qaababka aan kuu sheegi doono si aad u samayso falcelin guul ku gaarsiisa. Qaabka koowaad, iska ilaali inaad xanaaqdid. Dadka qaar falcelinta ugu horeysa ay sameeyaan ayaa ah inay xanaaqaan marka ay la kulmaan qof hoos u dhigaya sharaftooda ama qiimahooda. Taasna waa wax dabiici ah, laakiin xanaaqa ayaa noqon kara waxa qof kale uu kaa raadinayo. Xanaaqa ayaa qof ka dhigi kara inuu qaladaad sameeyo. Taasna waxaa ka faa'iideysta qofka ficilka aadan jeclaysanin kugu sameeyey isagoo u arka inuu kaa guulaystay. Haddii aad xanaaqdo waxaa yaraanaya inaad maskax degan ku fikirto, wuxuuna xanaaqu kaa hor istaagaya inaad samaysid difaac sax ah. Marka waxaad iska ilaalisaa inaad xanaaqdo. Isku day deganaan inaad hesho xitaa xaaladda hadday mudan tahay inaad xanaaq muujisid. Qodobka labaad, waxaad ka fogaataa meesha ay xaaladda ka dhacday. Haddii lagugu sameeyo arrin aadan jeclaysanin, waxaad ka tagtaa ama ka fogaataa meesha ay xaaladdaas ka dhacday. Danta ugu weyn ee qofku xumeynayo kaa leeyahay ayaa ah rajo uu ku qabo inuu kugu ceebeeyo dadka kale. Wuxuu qofkaas kaa rabo ayaa ah inaad samaysid falcelin aan wanaagsanayn maadaama uu kaa xanaanjiyey, taas oo keeni karta adigoon is ogeyn inaad samaysid wax fool xun. Haddii aad ka fogaato waxaa meeshaas ku haraya hadalka iyo qofka dhahay oo keliya, waxaana meesha ka baxay saameynta uu adigu kugu yeelan lahaa hadalkaas. Qodobka saddexaad, qaado waqti intaadan falcelin. Marka ay tahay falcelinta, waqtigu waa muhiim. Marka aad dhibsatid hadal qof kugu yiri ama ficil uu kugu sameeyey qof kale, wax ugu fiican ee la sameeyo waa inaad qaadatid neef qoto dheer. Sidoo kale qaado waqti si maskaxdaada ugu shaqayso waxa dhacay iyo sida ugu fiican aad ugu jawaabi lahayd. Iska ilaali inaad durbaba dagaal gashid. Haddii aad fursad siisid maskaxdaada, waxay u badan tahay inaad heshid waddo aad ugu guulaysato qofka hadallada xun ku isticmaalay ama kugu tilmaamay. Qodobka afraad, u aqbal ama iska diid caado qaab saaxiibtinimo leh. Dadka qaar ayaa joogtay inay isticmaalaan hadallo qalafsan ama fool xun, magacyo dadka dhibsadan ama inay wax ka sheegaan dadka sida ay og yihiin ama samayska jir dhismeedkooda. Waxaa adag dadka noocaas ah inaan wax ka qabano dabeecadahooda, balse waxaa noo furan inaan anaga falcelinteena ku guulaysano. Haddii aad la kulmto qof noocaas ah, isticmaal labadan qaab. Qaabka koowaad, aqbal. Adiga oo degan u sheeg qofka ku cay inaadan waxba ka qabin hadalka ama magac uu kugu yeeray. Una sheeg inaadan kala jeclayn, maadaama qofkaas uu doonaya inuu kaa xanaajiyo, waxaa meesha ku xirmaya faa'iidada uu ka heli lahaa inuu kugu yeero magacaas ama saamaynta hadalladaas ay kugu samayn lahaayeen. Sidaas darteed qofkaas wuxuu meesha kaga harayaa isticmaalka hadalkaas ama magacaas. Qaab kalena waa inaad iska diiddo. Adiga oo degan u sheeg inaadan raalli ka ahayn in magacaas lagugu yeero ama hadalladaas lagu isticmaalo. Waxaad u sheegtaa inay ku qaldan yihiin balse aysan wax dhibaato ah kuu keenin haddii ay sii wadaan isticmaalkooda. U sheeg inaadan kala jeclayn. Qodobka shanaad, weydii inay ku sharxaan ujeedadooda. Haddii qofku ugu dhaho hadal aadan jeclaysanin, waxaad si saaxiibtinimo leh u weydiisaa inay ku sharxaan. Waxaad weydiisaa meesha ay ka maqleen iyo sababta ay kugu isticmaaleen. Inaad meesha ku furto wada hadal waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato meesha uu hadalkaas ka imaaday. Waxaa meesha ku ceebooba ama xishood ku dareema qofka hadalkaas ku dhahay, waxayna iska ilaalin doonaan inay mar kale sidaas kula dhaqmaan. Qodobka lixaad, iska indhatir qofka ku caynaya. Faa'iidada ku jirta inaad iska indhatirtid qofka waxa aadan jeclaysan kugu tilmaama ayaa ah inay dareemaan miisaankaaga, sababtoo ah inaadan qiimo u yeelin hadalka qofka dhahay iyo waxa ay dhaheenba. Marka aadan waxba ka soo qaadin cayda, waxaad kor u qaaday sharaftaada, waxaadna meesha ku muujisay in sharaftaada iyo qiimaha aad leedahay erey qof dhahay uusan waxba u dhimaynin. Waxaa meesha ku ceebooba qofka u hadlay sida xun. Qodobka u dambeeyana waa ka fogow dadka dhaqmada sunta ah leh. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dad mar walba jecel inay khilaaf ku dhex jiraan, dabeecadooda ha xukumin. Waxaa laga yaabaa inaysan awood u lahayn xakamaynta shucuurtooda. Sida ugu sahlan ee aad ku kala nabadgeli kartaan ayaa ah inaad joojisid la kulankooda. Haddii aad ku qasban tahay inaad kulantaan, isku day in kulankiina uu aad u gaabnaado, kuna ekaado keliya danta kugu qasabtay inaad is aragtaan.